daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ku saabsan isu soo baxyadii aadka u waaweynaa ee ay maanta taageerayaasha xisbiga mucaaridka ah ee UCID ka sameeyeen guud ahaan gobolada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. kumanaan qof oo ay horkacayaan mas'uuliyiinta sarsare ee xisbiga mucaaridka UCID iyo musharaxa madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga UCID ayaa maanta isu soo baxyo aad u ballaaran ka sameeyay fagaaraha beerta xurriyadda ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. daawadayaal waxaanu jecel lahay in aanu halkan idinku soo gudbino barnaamij gaar ah oo ku saabsan qaabkii uu u dhacay isu soo baxyadii aadka u ballaarnaa ee maanta ka dhacay fagaaraha beerta xurriyadda iyo khudbadihii kala duwanaa ee ay ka jeediyeen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee UCID ee ay kula hadlayeen taageerayaasha xisbigaasi. barnaamijkaas siduu u dhacayna dhegaystayaal ku soo dhawaada waa kane. وليتفقه حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan mahadnaq ballaaran u jeedinayaa dadweynaha reer Hargeysa ee reer Maroodijeex ee aadkiiga firxadiyey ee muujiyey taageerada ballaaran ee u hayaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee muujiyey taageerada ballaaran ee ay u muujiyeen musharaxooda ka soo jeeda anigu maadaama ahay gudoomiye olaha ee gobolka Maroodijeex waxaan u toos u oranayaa ee ka soo jeeda gobolka Maroodijeex waayo musharaxiinta kale waxay ku dhasheen gobollo kale isaguna gobolka Hargeysa ayuu u dhashay waana markii ugu horeysay ee musharaxa Hargeysa madaxweynaha
Hooyo